dhacdo xanuun badan oo ka dhacday magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle saaki abaar xilligii barkadii ay ciidamo ka tirsan ee dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan magaalada Jowhar geysteen fal anfirir ku riday shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar gabar yar oo da'deeda lagu sheegay 10 sano jir kana mid ahayd caruurtii magaalada loo keenay ciida darteed ayaa askari ka tirsan militariga federaalka Soomaaliya oo saarnaa gaari ee nooca dagaalka oo ay Soomaalida u taqaano Cabdi Bile waxa uu ku dilay bartamaha suuqa lagu iibiyo qaadka ee magaalada sida la sheegay askariga falka geystay iyo ciidamadii kale ee la saarnaa gaariga uu la socday ayaa qaad ka soo doontay suuqa waxaana qiimo sare ahaa maanta qaadka taasi oo keentay in si macno daraa ay ciidamadu u ridaan xabado waxaana Allah u naxariistay xabadihii la riday ee ku dhimatay gabar 10 sano jir ah ee caruurtii ciideysay ka mid ahayd balse ciideedii la soo afjaray galabtana la aasay warar galabta la helayo ayaa sheegaya in ciidamada booliiska Hirshabelle ay soo xireen askarigii falka xanuunka badan geystay